Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in isbeddelka ka dhacay Itoobiya uu deegaanka Soomaalida u horseeday baraare iyo xorriyad ballaaran. Mustafa oo waraysi gaara siiyay VOA ayaa sheegay in xisbiga haya talada Itoobiya uu guul ka gaari doono doorashooyinka ka dhacaya dalkaasi bartamaha sanadkan. Mustafa ayaa dhinaca kale sheegay in aanay jirin wax faragelin ah oo dowladda Itoobiya haatan ay ku hayso dalka Soomaaliya, inkastoo uu qiray in dowladihii hore ee Itoobiya ay si weyn faraha ugula jireen arrimaha Soomaaliya. Cabdiwali Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga. madaxweynaha dowladda deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo waraysi gaara siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in xisbiga barwaaqo ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu hogaamiyo dowladda deegaankuna ay ka tirsan tahay uu ku guuleysan doono doorashada Itoobiya bisha Juun ka dhici doonta. Mustafa ayaa ku doodaya in xisbigan uu leeyahay aragti guud oo dalka Itoobiya isku wadi karta. xisbigan ka tirsanahay talada haya xisbiga barwaaqo la yiraahdo Ra'iisul Wasaaruhu hogaamiyo waxaan aaminsanahay xaaladda iminka lagu jiro inuu ku guuleysan doono doorashada soo socota. Waxaan aaminsanahay xisbiga ugu ballaaran ka jira dalka waa xisbi xubno aad fara badan dalka ku leh waa xisbi aragti dalka isku wadi karta oo xisbiyada iswada haysta ee qoomiyadaha dawladda geliyay ka yar duwan oo ku guuleystay inuu ugu yaraan magac ahaan isu keeno 10 gobol ee dalka ka jirtaba dad ka soo jeeda inay xisbiga qayb ka ahaadaan. madaxweyne Mustafa Cumar ayaa sheegay in dhinaciisa shacabka deegaanka uu weydiisan doono inuu u tartamo iyo in kale, balse wuxuu hoosta ka xariiqay inuu doonayo inuu qayb ka noqdo qorshe ogolaan doona in dadka deegaanku ay si xor ah u doortaan kuwii masiirkooda matali lahaa. waxaan u bandhigi doonaa shacabka meeshaan ka soo doorashada ka gelayo inaan tartan ka galo. guushuna ma aha kaliya kursiga in lagu fadhiyo, guushu waa in dadka Soomaaliyeed ee deegaankani si xor iyo xalaal ah ay u doortaan dadkii matalayay masiirkooda ay ku aaminayeen inay doortaan weeyaan. xisbiyada la filayo inay doorashada ka qayb galaan waxaa ka mid ah xisbiga ONLF oo iyagu dowlad deegaanka ku eedeeyay in ay hagardaaminayso laba garabna u kala jebisay. madaxweyne Mustafa Cumar oo aan weydiinay wuxuu kaga jawaabay eedaha ONLF ayaa isagu ka gaabsaday in uu sinaba uga jawaabo arrinkaasi. Itoobiya isbedelada ka dhacay gobolada uu sida weyn looga dareemayo waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida. madaxweyne Mustafa Cumar ayaa sheegay in deegaanka oo markii hore dhibaatooyin ay ka jireen uu iminka si weyn ugu najaxay isbedeladii dhacay. isbedelka ka dhacay dalka Itoobiya sanadkii 2018 deegaanka macnaha weyn uu sameeyay isbedelka ka faa'iideystay waxaan oran karnaa deegaanka Soomaalida guud ahaan dalka marka la eego. way jiraan deegaano kale oo iyana wax soo kordheen, laakiin waxaan isleeyahay deegaanka ugu dhibta ugu badan ay haysatay tacaadiga ugu badan uu ka socday maamulxumada ugu ballaaran ay ka jirtay qaxa iyo barakac ugu badan uu ka jiray deegaankana waa sidaa daraadeed isbedelka siyaasadeed dadka ku nastay nabadgelyo ballaaran ku helay xorriyad ballaaran oo xorriyadu qowl xorriyada socodka saacada rabto meeshii qofku dalka dibadiisa iyo gudihiisaba oo awal ciriiri ahay. laakiin qaar ka mid ah dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha ka baxa ee deegaanka ayaa ku andacoonaya in isbedeladani aanay weli iyagu dareemin, waxayna ku doodeen in inta badan shaqooyinka dowladda dhexe ee xirfadaha u baahan ay qabtaan dadka ka soo jeeda qoomiyadaha kale. madaxweyne Mustafa Cumar ayaa qiray in arrinkaasi ay jirto ayna tahay caqabad taagan oo eedana ay qayb ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee deegaanka. dhalinyaradeennu inta badan ma jecla inay ka shaqeeyaan meelahaas kale mushaharka oo yar iyo shaqada badan awgeed. xaqiiqo ahaan inaan mar walba eedayn iyo farfiiq wadna ma waan sheegnay waxaan ka gabanayna maaha. Soomaalidu waa marginalized federal institutionska ilaa federal ilaa kuwa han ka shaqeeya kaalintii looga baahnaa lama siiyo. taa waa isla garanay wax marka difaacida oo dawladda difaaciya ma, laakiin dhinaca kalena wixii inaga inala jira waa inaan ka hadalno. factsku waxa xaqiiqadu waxa weeye dhanka shaqada markay noqoto dhaqanka shaqada dhalinyarada aad weligeed waxaan ka wareegaysan karnaa waa inaan aqbalaa waa inaan la tacaala waa inaan saxnaa. madaxweynaha DDS ayaa ka hadlay kheyraadka deegaanka laga helay gaar ahaan shidaalka laga qodahayo deegaanka iyo waliba dhibaatooyinka iyo cudurrada ka dhashay deegaanada laga qodahayo shidaalka.
mustafe ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira caafimaadka ka dhashay qodista shidaalka. shacabku laakiin wuu cabanaya aagaa jooga cudurrada hadda ka hor ayna arki jirin way sheegaan waana wax iska dabiiciya marka barnaamij noocaas oo kale la sameeyo inuu keensan karo saameyno caafimaad iyo kuwo bay'ada la xidhiidha inuu keensan karo waa la garan karaa. marka waxaa noo qorshaysan hadda inaan horta bal shirar ballaaran oo bulshada iyo waxgaradka aagaas ka soo jira intaan qabanno aan sii baadhno arrimaha waxa ka jira haddii ay caddaato inay dhibaatooyinkaasi siday loo sheegay u jiraanna inaan wax ka qabanno annagoo la kaashanaya dowladda federaalka. waxaa kaloo noo qorshaysan in bal dad soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimaha shidaalka oo kale oo dhan walba naga caawiya aan shaqaalaysano. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan Soomaaliya iyo saameynta Itoobiya. madaxweyne Mustafa ayaa qaray in dawladihii hore ee Itoobiya ay si toos ah u maamuli jireen meel kasta oo kamid ah Soomaaliya balse wuxuu sheegay in dowladda iminka ee Ra'iisul Wasaare Abiy uu hogaamiyo aanay wax galaangal ah ku lahayn arrimaha Soomaaliya. maadaama oo dowladdii ka jirtay Itoobiya ay saameyn ma ahe toos iyadu u maamuleysay dhammaan Soomaaliya oo dhanba oo la oran karaa 30 sano u dambeysay oo wax ayna iyadu go'aamin meel uu ka fuliyay ayna jirin waa dabiici haddii ay hadda jirto sas Itoobiya ah oo shacabka Soomaaliyeed mar walba ay aaminsan yihiin in faragelin Itoobiya ka timaada ay jirayso waa wax la fili karo. laakiin aan waxaan ogahay oo xogaal aan u ahay in dowladda Ra'iisul Wasaare Abiy uu maanta hogaamiyo falsafada ay kula dhaqantaa Soomaalidu ka duwan yahay kii hore gaar ahaan Soomaaliya. waxaan ogahay in faragelintii lagu hayay iyo taliyaashii loo soo dirayay iyo siyaasiyiintii la kala jiiday hadda ayna ka jirin Soomaaliya. Cabdi Maxamed VOA Jigjiga.